runtii waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa MMTV ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno Cabdikariin Axmed Maxamed oo ah gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga ee Soomaaliland. Cabdikariin waxa uu kamid yahay xisbiga talada dalka haya ee Kulmiye, waxaanu kamid ahaa aasaasayaasha xisbigaasi. sidoo kalena waxa uu kamid yahay golaha dhexe iyo gudida fulinta ee xisbiga Kulmiye. Cabdikariin waraysigeygani waxa uu daarnaan doonaa oo uu ku saabsanaan doonaa doorashooyinkii dalka ka dhacday oo uu ku koobnaan doonaa. haddaba doorashadii dalka ka dhacday Somaliland, golaha wakiilada Somaliland waxaa looga adkaaday xisbiga talada dalka haya Kulmiye. 31 mudane ayuu helay xisbiga mucaaradka wadani, 30 mudanena waxaa helay xisbiga Kulmiye oo kaalinta labaad ka galay xisbiga mucaaradka wadani wuxuu helay 22 mudane, 82 mudane golaha wakiilada. mudane Cabdikariin, in xisbiga Kulmiye uu helo 30 mudane maxaa sababay isagoo xisbiga xaakimka? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم. horta su'aalo badan baan beryahan ba maqlayo dee la isweydiinayo ama dad ku celcelinayo oo xisbigii Kulmiye taageerayaashii uu haystay dalka ka haystay uu luskareeyay ama hoos u dhac baa ku yimi. marka wayna horta dee cadaataa si cilmiyana loo cadeeyaa hoos u dhacaasi inuu jiro iyo inaanu jirin. arrinta muhiimka ee meesha taala waxa weeyaan marka laga imaado warbixintaada iyo qaabka doorashada iyo xisbigaaga sida difaacayso, gobolka Togdheer waa gobolada adigu aad ka soo jeedo deegaanaha, waana gobolkan imika aad ka hadlayso. tirada xildhibaanada aad ka hesheen deegaankaaguna uu yahay hal xildhibaan oo deegaankaagii uga soo baxay xisbiga Kulmiye. ma waxaad leedahay deegaankaagii Togdheer fursad buu ka helay mise waa lagaga badiyey, waa lagaga adkaaday xisbiga Kulmiye iyadoo deegaan doorashooyinkiisa ugu waaweyn waa Kulmiye? waa dhab. marka xisbiganu ka hadlayna deegaan baynu u wareegaynaa. waa dhab hal musharax buu ka helay. waxaa jira duruufo gaara oo gobolka Togdheer isaga u gaara oo ka jiray. waan kuu soo wadaa. waxaa jira waan filaya gobolka keliya ee xisbi waliba awoodda gaara saaray inay ahayd. waa gobolka keliya ee saddexda xisbiba aniga deegaankayga ay ka sharaxeen wax tiro badan ay ka sharaxeen. xisbiga la yidhaaho ucid 15 buu ka sharaxay, 10 baa aniga deegaankayga aniga deegaankayga 10 mise 11 baa xisbiga la yidhaaho Kulmiye 10 buu deegaanka ka sharaxnaa. deegaanka loo saasi ma jiro. xisbiga la yidhaaho wadani 6 baa ka sharaxnaa, 6 baa ka sharaxnaa. waana hal deegaan waxay ku wada wajahan yihiin. Cabdikariin, waan kuma dhamayn. waxa kale oo jiray niman dee ama siyaasiyiina oo isla deegaanka isku deegaan nahay oo dagaal xisbiga Kulmiye ama madaxweyne ay kula jiraan ay kaga khaldantay tii deegaankiisu oo xisbiyada kale dadka u rareeyay ama ka sharaxay ayaa jiray. waad garanaysaa waa siyaasiyiintaas adaa sheegaadan ku weydiinay waa siyaasiyiin. dee waxaa ka mid ah Maxamuud Xaashi. maan xisbiga Kulmiye ka tirsan? wallaahi dee Maxamuud Xaashi xisbiga Kulmiye ka tirsanay buu yidhi, laakiin xisbigu xeerkiisa wuxuu qorayaa anigu wuu yahay ma yahay midna odhan maayo, laakiin xeerka xisbigu wuxuu qorayaa waxyaalaha xubinnimada xisbiga lagu waayi karo waxaa ka mid ah inuu qofku siyaasadda xisbiga ka hor yimaado ama xisbi kale la shaqeeyo. damaad ku haysaan caddaynta hadduu qorayo maxaad caddayntiisa ugu samayn weydeen? ila isagu ma odhan waan ka baxay xisbiga Kulmiye ka tirsanay buu yidhi. iligo
qofku waan xisbiga waa laga saaray iyo ka baxay iyo waxaas faa'iido ma yeelato waxa faa'iido yeesha maxaa ka dambeeya ayaa laga fikiraya wuxuu yidhi wilwal baa doonay inuu dilo markaasay isaga fadhiisteen markaasuu doonay cirka intuu tuso inuu qoorta ka jabo markuu cirka haadkaasi ku dhacayo hadba keenna eega marka malaa'igtu taa fahmi maysid maamada waxaan uga jeeday ka soco أنا فاهم مهمة وحمهمة إن نحرك تابنه محمود حاشي حسب كل مية كم بحن مير وكجب بحين المشي لقى منصاري سياسة دي سادو خلافي واجبات مياني يكون لأنك حسبي ونوجي لا واي محور دقيقة تاكل شيء ودقيقة واي ما حد قدام ويدين خصم معها ساعدها قفك مركز ساعدها وانت لا بدل لقى واي خصم معها ظروف كذا واي اسكاجتك محمود حاشي حدي حسبي وإذن كشقيو سياسة ديني سياسة كسوهر جدا وكشقي مياني نقول إنه إذا كجا أود بتي قبل كي اللي يسكت ديجان باتينو أنا حسبي الدولي جاي كل مياتي يسوي يصلح حسبي جاد ودت كلو شقي فرصة داسي إذا كم يدام بحن ما واي ما نام بحن واي هذاك ويديني صوت بحسب مياني هين محمود حاشو حسبي نية inaad kasban kari weydaan inuu idin shaqeeyo oo fursadan xisbiga uu dadka kale ugu shaqeynayo uu soo saaray xildhibaanadooda ugu dadaalayo oo idinka shaqeynayo idinka idinku shaqeeyay kasban kari weydaan maxamed xashiiran aad iyo aad ugu dheeraado anigu ma jeceli runtii waxbana hadalkiisa inagu celcelin maanan kari waayin laakiin isagan diyaar u ahayn simple ma siyaasadda xisbiga kulmiye diyaar u ahayn maxamed xaashi xisbiga kulmiye uu ka tirsan yahay gudoomiye xisbi buu doonay حسبي لقى مصر مو دونين محودون هي محودون قدومي حسبي تصبر شيء دوني وشرحناه قدومي حسبي مركز يقول لنا شركه انه قدام بيه ادشرويني حسبي قبطين ميدان مدحوينها دي بيقول علي مره لبعض كوب سوق قيب قالوا اسمه شرح لكن ودونه وشيكتو بنانكو كشيكت إلو ديدينو وشيكت taasi waxa weeye iska lucbad weeye cidina uma diidan cidina kama hor istaagin mana way way cabdi kariim inuu heli lahaana waa suuragal deegaanka kale gobolka Sanaag maxamuud xaashi deegaan ahaan uu ka soo jeedo xildhibaano badan baa ka soo baxay deegaan ahaan xoog inuu ka shaqeeyo buu sheegay fursadna uu halkaas uu ka soo helay xisbiyada kalena wali bay uga soo baxeen gaar ahaan xisbiga xildhibaano badan uga soo baxeen miyaanay noqonin inta halafteedu fursad idinka idin sheegtay inaad maxamuud kala shaqeysaan gobolka Sanaag taasi waa dacayad uu samaystay ama loo sameeyay waxba kama jiraan dadku iyaga is sharaxay deegaamadooda sharaxay qof waliba meeshiisa ka soo baxay xisbigu doonayba ka soo baxay waxba kama jiraan taa cadaynkeen soo cadaha caday cid waxa 13 xildhibaano deegaankiisa baa golaha wakiilada fadhiya marka la eego gobolada Sanaag iyo Sool maxamuud xaashi cabdi gobolada uu deegaan ahaan ku tiirsan yahay way maxamuud aad uga jeedaa caday halka gobolka Sanaag iyo Sool marka loo eego 13 xildhibaan baa ka soo baxay deegaankiisa marka la isku daro taasi miyaan noqonin maadaama siyaasaddiini ka shaqeynayay in uu siyaasad ahaan maxamuud xaashi idin ka badiyay adigoo isku deegaanay horta hal su'aal iga jawaab maxamuud xaashi marka la deegaamadu ka soo jeedo iyo caday wax uga jeedo deegaan doorashadiisa saxda isaga ayaan ka hadlay Sool iyo Sanaag deegaan doorashadiisa saxda ah waa Sool waa Sool iyo Sanaag baan ku anu isku daray soo adiga ba tog dheer afka reeraa ku sheegay reer bashi u socota ma lahayn afkayga ma afka reer yaa hadaba joogo Sool u leh Sool iyo Sanaag waa Sool maxamuud deegaankiisa aad ugu diidantay Sanaag deegaan baan u ahayn ma deegaan guud baan u ahayn maxamuud xaashi deegaan guud waan u wadanay burcu yahay oo ana Sanaag oo Sool baan u ahay caday wax u jeedo laakiin deegaanka guud miyaan idinka kala duwanayn ma kala duwanaa way isku soo noqo cabdi kariim ku soo noqo waa nira Soola 13 ma waa 12 way adiga xildhibaankaagi doorashadii baarlamaanka uu waayay ee xisbiga kulmiyay xildhibaano masaraakiil kale oo dawladda ka tirsan xildhibaanadoodii way waayeen oo 20 ku dhow taasi miyaanay noqonaynin xisbigii idinku aad ka tirsanaydeen aad fulinka ahayd ee aad ka ahayd ee golo dhexe ee wasiirada gudoomiyaal qaar ka ahaayeen ay ka ahaayeen golo dhexe ee deegaan doorashadiina tog dheer Sanaag Sool intaba isku daro inay noqonayso in taageeradii deegaankiinu idin hayay hoos u dhacday horta halka waxay u baahan tahay sida fikirka dadka suuqa ku fikirayo iyo sida aad weydiinaysaa sibay isu shabahaan waxa maskaxdeena markiiba soo gelaya su'aal isu weydiinayo xisbul xaakim sidee baa looga farabatay gobol ama doorasho looga adkaaday
waxaa maskaxdeena soo gelaya doorashooyinkan ka dhaca Afrika ama meelo badan oo caalamka ka mid ah ee marna aan xisbi xaakim laga guuleysan karin waxa meesha soo gelaya xisbigu muxuu lacag u isticmaali waayay ama muxuu baaw awoodiisa dawladnimo u isticmaali waayay ama muxuu wax kale u isticmaali waayay ayaa soo gelaysa horta total intaas meesha ma jirin intaas meesha ma jirin fikirka ah xisbi xaakim sidee lagu guuleystaa hore baa lagu guuleystay inoo qora ma aha meel badan baa lagu guuleystay waa haddii guushaas ay jirto maxaad ku diidaysaa guusha soo muuqata waa haddii guushaas jirto waan ku cadeeyey guushaas inaanay muuqan 5,000 iyo siyaado cod baan ku horeeya waxa kala nooca sida loo soo musharax ku soo baxo iyo codka kala laba ah haji taasi ha ku gasho aymka ama ujeedada dawladda iyo xukuumaddu waxay ahayd ama xisbiga kulmiye in ay doorasho nabadgelyo ku dhacdo oo free and fair ay dhacdo tina way dhacda waa guul qaran ku leeyahay waddan ku leeyahay xisbiga kulmiye muu doonaynin guul isagu leeyahay gaar u leeyahay marka ma tartan ma waxa rag hadduu tartan galood xisbiga tartan wada gashaan ma waxaad leedahay in waxaan garoonka u yimid in layga guuleysto oo tartankii laygaga badiya leedahay maya inaan guuleystaan way ta kalan ku sheegay waxa weeye doorashada inay wanaagsan tahay inaanay wanaagsanayn marka laga hadlay xisbiyada mucaaradka kuma xidhnaa sida doorashada u dhacday ma eegayaan waxay ku qanceen maaha sida doorashada u dhacday waa natiijada ka soo baxday haddii natiijada ka duwan ka soo bixi taa aad doondoonaysa ka soo bixi lahayd oo kulmiya ama uu ku shuman lahaa ama iibsan lahaa ama boobi lahaa ama lacag isticmaali lahaa ama xataa si feera intay u dhacdo kulmiya badan lahaa xisbiyadaas kumay qanceen natiijadana kumay qanceen macnaheedu waxa weeye kulmiya wuxuu ku qancay sida doorashada u dhacday xisbiyada mucaaradkuna waxay ku qanceen sida natiijada soo baxday farqiga waa intaa marka idinku sida natiijadu u dhacday meedan ku qancay waan ku qanacsanahay sida doorashadu u dhacday intaad ka hadlaysaan sida natiijadu u dhacday meedan waa ku qanacsanahay laakiin waxaan ka hadlayaa xisbiyadu natiijada ay ku qanacsan doorashada kuma sida u dhacday kuma qanacsan way tartankii haddaad diyaariseen oo aad leedahay doorasho wanaagsan baanu qabanay waa laydinka guuleystay aqlabiyaddii mucaaradku waxay heleen 52 mudane golaha wakiilada idinkuna waxaad heshay 30 mudane 82 mudane waxaana doonaysaa inaad shirgudoonkii golaha wakiilada qaadataan doorashada wanaagsaneed qabateen maxaad ugu dayn weydeen aqlabiyadda sidaad idinku ku soo hesheen 2005 aqlabiyaddii aad hesheen 49 mudane ahayd xisbigii kulmiya iyo xisbigii cid ay ku midoobeen 28 mudane iyo 22 mudane ee gudoomiyaha golaha wakiilada iyo ku-xigeenkiisa iyo ku-xigeenka labaad u qaateen maxaad fursadda ugu bixin weydeen xisbiyada mucaaradka mana xaq u lahayn imika stereotype tamid ka khaldamay malaadna maad filaynin cid filaysaana ma jirto labada xisbi oo isu tagay inuu xisbiga kulmiya ka badan lahaa cid filaysidii ma jirto xisbina keligii iminka marka xisbinimo lagu xisaabtamayo aqlabiyad gaar ma haysto uu shirgudoon ku doortay horena uu dhacdo laba xisbi way israaceen iminkana laba xisbi baa israacay xisbiga kulmiye sidii xisbigii udub caqabad baa ka timid markii laba xisbi israaceen oo wixii ka dhacay waad ogeydo guurtid waa tii markii dambe kala dhex gashay oo ah ma qaadanayaan anu ma qaadanaya maana odhan laakiin waxaan leenahay waanu tartamaynaa anaguna iyana tartamaan laba inta waxaanu kala duwanna anigu shirgudoonku waanu tartamayna ma qaadanayaan waanu tartamayna laba isku mid une haddaad tartantaan waa isku mid meesha wixii yaalee laakiin madaxweyne riyaale waqtigiisii waad qaadateene maxaad u bixin weydeen imika fursadda nalama siin berigaa waliba isagoo guuleystay isagoo 30 mudane ku guuleystay idinka mucaaradka baa idinka guuleystay komisto mudanaysa wareer mala beriga de dhowriyay jir baad ahaydee oo sidan waxba fahamsanayni sida ma caruurba beriga ahaydee sida ma ahayn de waa la isku qabsaday waa lagu dagaalamay rabshad baa ka dhacday golaha guurtida dhexdhexaadiyay guurtida soo gashay guurtida soo xukuntay anagu tiimanaan marin anagu waxaan saas uma ku tartamayna ama helaan ama helno guurtida waxay tiruun fursadooda haysto hortaan faraha ka qaad maya sidaa ay wala istortay sidaa ay soo doorteen istaa way diiday udub marka imikana waan ku tartamayna marka xisbiga ismay dooran ya ka khaldamay ilaa imika ilaa maxkamaddu dhaariso oo ansixiso xildhibaanade maaha way xildhibaan haddii waa tartamaysan iyaguna tartamayaan saddexda mudane cabdisaaq khaliif axmed iyo cumar jaamac faarax iyo cali xaamid jibriil ay u cadeynayeen saddexdooda musharax idinkuna saddexdii mudane aydan cadeyneed yaasiin maxamuud xiir faratoonkadii cadayseen miyaanay noqonin in iyagu aqlabiyadoodii 52 mudane uu fursad u raadinayaan ha sugi waaye inaanu cadeyno waanu ka waay aragsannahay waanu ka wax badan baanu kaga duwannahay
ciddii anagu maanaan gelin coalition maanaan gelin cid wax iskumaanaan darsan waktiga waan ku xisaabtamaynaa degdegin cid badka way aragsantiin oo ururkii ugu horreeyay lagu dhawaaqay xisbiga islaamiyada afka hanoo gelin annaga cid badka way aragsantiin Faysal ururadii ugu horreeyay bilaabay kulmiya ka dambeeyo 2002 la sameeyay dahay waa keligii un baa joogay inta kale waa cusubta way kusoo dhawow Cabdikariin qodobka ka hadlaya waxa weeyaan xildhibaankaagii markuu dhacay ee uu waayey aad kulmiye ka sharaxday waxa aad sheegtay in xildhibaan xisbi mucaarada ka soo baxay uu xildhibaankaaga yahay maxaad uga jeeday dadka fasir waxaan uga jeeday horta dee laba xildhibaan baanu sharaxna ka deegaan ahaan labaduba inay soo baxaan baanu doonin labada xildhibaan bayna soo baxaan baanu doonin keligeena maaha deegaan badan macaynkaas mid baa soo baxay midka soo baxay aniga xisbi ahaan iguma metelo laakiin deegaan ahaan buu igu metelaa koo kala cadda deegaan ahaan waa deegaankaygu igu metelaa laakiin xisbi ahaan iguma metelo kale laba xisbi baanu baad fahamtay wax kale kugu daraa waad ku daraysaa qodobka muhiimka waxa weeyaan xildhibaan mucaarid kaaga soo baxayna tira waa xildhibaankaygii ma deegaan ahaan baa doonaysa inaad ku kasbato inuu ku raaco mabaadi'da ah inaad xisbiga xukuumiga aad geyso xildhibaankaaga maya deegaankayga baa doortay deegaanka anigu aan lahaaba ayuu ka soo baxay isagu metelaya isku constituency baan nahay isagu metelaya deegaanku metelaya أنا ديجان كان كم ذاي لكن سياسة الحزب يقوم بتلو أنتوا جوا وين عبد الكريم ما عبد الكريم ما أكون نقض عبد الكريم وين قبضك يو ديجان كحقبت كيس يو دوديس تيسة يو وهولجل كيسة ويقوم بتلو لكن مركز سياسة الحزب قطعي يقوم بتلو وين عبد الكريم مركز لقى عليه سياسة الحزب قاعد ديجان كاجي حلبان حزب كلاك السعودية صار صارين تسميين نقولين إن أديك فكر كاجي عرفتي هذه الجديدين ما دام الحزب جينا تاي سراكيشي سي وسري أو حزب كاجي كيك السعودية ودعي ماني إني حزب كاجي دبر كوتشي دي أنا سياسة باشرتي وحبا شريدتك هراء وقري أو حزب وطني واحد لقى صباح عضدير حزب قوي واحد لقى صباح عضدير وضد بدنا يتجاب وحقيقة ومركن تاكل يا هاي يمكن هذا كنت صو نتيجة دورشوينك حزب قوي واحد الله لي مشرحين تيس مدول بكأودن بيا مدول بكأودن بيا قبل والبا دور يطبل مشرحه أما كل بيا أما وطنية يا كعض بدنا وصابحين deegaan kaaga marka laga hadlay waxaad sheegtay in intaasoo musharax xisbiyada wada geeyeen dhaliisha idinkaa laydin saaraya meel badan waxaa laydinku saarayaa deegaan doorashadiina caadiga ah marka laga hadlayo dadkii odayaasha dhaqanka iyo dadku deegaanku ay isku raaceen in inta xisbiyada kale la geeyey idinkoo taa ka diidan xisbiga kulmiye aad geyseen niman kale oo xisbiyada aad u diidantiin mucaaradka ah marka fursadda khaladka xaggiina ka yimid taa maxaad kaga difaacayaa waxaan kaga difaacayaa marka laga hadlay doorasho baarlamaan ama doorasho deegaan deegaankaygu ka ballaaran yahay deegaan xisbi qura iska sharaxa kuma filla xisbi quri kuma filla laakiin dhacayna soo baxay waad kala garanaysaan iminka ba kuwa leeslay way soo baxayaan way dhaceen kuwa leeslay way dhacayaan way soo baxeen idina kuma xisaabtanto way Cabdi Kariim aan ku soo noqono laakiin waqti deegaankaygu ka ballaaran yahay deegaan xisbi qura iska wada sharaxa markii baarlamaan deegaan walba dadka wadankooda deegaan ka ballaaran yahay dadka la mid tiin way laakiin way dadkan la midna way anaga guri tahay soo qaadanaysa laakiin sadiga adigu yiri tiro ka badan dadka kale laga sharaxay marka waxaan ku weydiinaa dadkii ka sharaxay idinku khaladka sameeyay aad idinka laftiina xisbi kulmiyahan aad haydeen oo deegaan doorashadiina saraakiishiina ka sharaxnaa oo adigu aad weyday wasiirkii daaqligu waayay wasiirkii tamartu waayay intaasoo wasiiro xukuumadii ay waayeen deegaan doorashadoodii xildhibaanadii ay la soo bixi lahaayeen marka khaladka laydinku eedeynaya xaggiina inuu ka yimid horta iligow gobolka togdheer doorashadii hore aniga deegaankayga 4 xildhibaan baa soo baxay 3 xildhibaan oo baa imika meesha ka maqan 3 xildhibaan baa meesha ka maqan imisa kulmiyaha 4 xildhibaan kulmiye 4 baa soo baxan koori 4 xildhibaan baa meesha 8 baa soo baxay sida kale hadda doonayso reeraha hadda doonayso 8 baa soo baxay tii hore 5 baa imika nooga soo baxay 3 xun baa maqan 3 xun oo 3 kulmiye ka maqan guul darradaade 3 kale oo kulmiye oo baa soo bedelay minis kulmiye gobolka togdheer 2 xildhibaan buu ku waayay tirada hore uga haray laakiin taas meena guul darray labada xildhibaan miisaan bay leeyihiin ما نقول درين تاس طبعا ما دفاعيه ما دفاعيتها واي ان عبد الكريم ان كسو نقونو ان doorashooyinka Soomaaliland marka laga eego qaabkay u dhaceen doorashadii madaxtooyada marka laga imaado ee 2017kii doorasho wakiilo waxay ka dambeysay 3 sanadood iyo bad ay ka dambeysay waxaanad arkaysaa isbedelka bulsho ee yimid social media awood ku keenay inuu doorashooyinkii bedelo in xildhibaano deegaankoodii aan cod ka badan ku soo baxay
sida barkhad iyo mooge oo dad aan deegaanka uga haynin cod siiyeen arrintaasi saameyn deegaankooda maxaad uga jeedaa ma qabiilkooda uga jeedaa qabiilkooga Soomaali ku hadalo deegaan ma ka hadlay deegaan maxaad uga jeedaa deegaan- hargeysa ka soo baxan labadu hargeysa waa deegaantii deegaankooga dad ka badan baa codkiisi deegaan maxaad uga jeedaa hargeysa waa deegaankooda may xaafadooda gaarka reerkooda iska dhe caadi iska dhe Waay. inta caadiga iska dhe way xaafadooda gaarka cabdigeli ku soo dhaco adin maxaad uga baahantay reerkooda ika xaafadda maxaad uga jeedaa ma maxamed mugi waxaad uga jeedaa daami de xaafadaan laga hadlay mataasaad uga jeedaa xaafadii degmooyin weeyaan carab Soomaali dadku way ku soo noqo cabdigeli nayi way so may social media way saameeyeen doorashada Soomaaliland dad baa deegaan doorashadooda deegaamo kaloo aan ahayn haddii cabdikariin moogo laga doorto degmada maxamed moogi maxamuud aybe degmada juun iyo koodbur cod ka badan ka soo helay deegaamadii laga dooranayay arrinta ka hadlaya waa taas haddii barkhad laga doorto degmada gacan libaax inuu cod ka soo helay degmada juun iyo axmed dhagax cod ka badan deegaankiisa uu ka soo helay taasi saameyn mayda ku yeelanaysa hadhow tolo doorashada madaxtooyada oo fahamka bulshadu ma keeni karaa inaydun kalsooni darro ka qaadaan inaydun doorasho madaxtooye waqtigeeda ku qaban kari weydaan isbedelka bulshada ku yimid darteed maya waa tallaabo aynu hore u qaadnay iyo faham aynu wax sii fahamnay iyo wax wanaagsan oo inoo soo kordhay bay tani sii noqonaysaa waxay keeni kartaa in anigu aan iska sharxi karo berito buurame waxay keeni kartaa in hargeysa iska sharxi karo waa tallaabo hore loo qaaday oo dalkii dadka faa'iido u leh waana wax imika aynu wada ogaanay in isbedel yimi oo lagu xisaabtami karo way idinka maayaradii caasimadaha 7 degmo oo ah oo ay ka mid tahay Boorame Gabiley Hargeysa Berbera Burco Laascaanood Erigaabo 2 degmo doorasho 2 degmo oo ah 7 degmo ee ah ee ugu waaweyn 6 gobol caasimadahooda iyo degmada Gabiley waxaad haysataan xisbiga kulmiye degmada Gabiley iyo degmada Berbera 5 kale oo dhan mucaarad baa haysta 4 xisbiga wadaniga iyo mid xisbiga wicida oo istoortay maayaradii saameyn inta leeyahay xisbiga ku yeelanaysa kulmiye waxba ku yeelan mayso ninka loo maayarka ama golaha deegaan xisbi gaarada u shaqeyn maayo deegaan iyo reer gaaran u shaqeyn maayo dadka deegaanka doortay buu u shaqeynaya wax weyn oo maanu arkayno isku maanaan lorin war sumaan arkay dhigeyso tan anu muhiimadda ona kana wata baarlamaanka deegaan waa local waa degmadiisaas wuxuu u qaban karo baa loo baahan yahay in la siyaasadeed taasoo kale loo baana haddii ay saameyn yeelanayso gole deegaan maayarkiisu uu siyaasadda qaranka saameyn ku yeelanayo inta asiga sabci ergama anaga haysanay tii hore laakiin saameynteedu ku yeelato waxay dhammaan maayaradii idinku aad lahaydeen oo dhan markaad u tartamayseen doorashada madaxtooyada waxay idinla qabteen shaqo aydan idinla qabteen maayaro kale haddii ay joogi lahaayeen tusaale ahaan maayar muraad ololaha madaxtooyada qaybta ugu weyn buu ka ahaa degmada burco maayar cidin degmada doorashadii madaxtooyada wuxuu ahaa dadka ugu waaweyn idiin ololeynayay buu kamid ahaa magaalada berbera solteelka wuxuu kamid ahaa dadka ugu waaweyn ee ololeynaya doorashadii madaxtooyada amiin wuxuu kamid ahaa gabiley dadkii idiin ololeynaya ugu waaweynaa maayarku saameynta intaa leeg miyaanu ku lahayn oo dadkii doorashada madaxtooyada fursadda ugu weyn ay kula shaqeeyay ahayn sideed u odhan kartaa iminka muhiim maaha maxamedow maayarku markuu ololeynayo waa shaksi laakiin awood dowliga ku ololeynaya kuma ololeynayo tiisu ku ololeynayo shaksinimadiisu ku ololeynayo saameyn ay yeelanaysaana ma jirto mid dadka idiin soo saarin lacagta bixinaynin calamada keenaynin shaqada qabanaynin abaabulka ugu badan idiin sameynaynin soo dhaweynta brotocoolka guddoomiyaashii musharaxiintii xisbigiina ka tirsanaa idiin sameynaynin fursado aynay ka helin xisbiyada mucaaridka meeda idiin wada samayn waayo ma jirin taas doorasho kasta olole kasta oo khayryada lagu qabanayo maayaradu si isku midabay ugu maamulayeen xisbiyada si isku midabay ugu maamulayeen ugu hagaajinayeen uga qayb gelinayeen ugu abaabulayeen ugu diyaarinayeen wax ka duwan may qabanayeen kulmeen wax ka duwan may qaban waay imika ururadiis mati oo imika idinkana waa idin qabanayeen waay waay oo ku soo dhawo cabdi karim arrinta muhiimka ee laga hadlay maanta imika waxa weeyaan in ururadii siyaasiga ahaa xisbigii ururadii siyaasiga la furay golii wakiilada ay dhaaftay golii guurta ay dhaaftay madaxweynihii imika ay u gudbayso maxaad rajaynaysaan tisaawarka sidaas wada sharciye marta mar haddii wada sharciye martayna hadal kama furna waa sida wadada sharciye maxaad uga jeedaa wada sharciye golayaasha bay martay labada goloba way baaskareeyeen madaxweynahay gaadhaysaa wuu saxiixaya ma diidi karo madaxweynuhu madaxweyne ma diidi karo way xeerka sheegay 22 maalmood gudahood hadduu ku saxiixi waayo waa dhaqan gelis way haddii ururada siyaasiga la furo
doorashadii madaxtooyadii iyo ururada siyaasiga way isku dhowaanayaan maxay kula muuqataa ma inay doorashada madaxtooyadii u dhici karto maya ilama muuqato sidee la iskugu qaban karaa waa waxaan doorashooyinka had iyo jeer xisbiyada isu yimaada wax way ka wada hadlaan xisbiyada markaa jira iyo ururadu bay isu yimaadaan waa laga wada hadlaa somalilandna doorashooyinkeedana waa maaraysaa khilaafaadkeedana waa maaraysaa waa la maaraynayaa laakiin kulliba midogow November iyo December in laba doorasho dhacayn November iyo December inaan dee laba doorasho dhacayn caqligaagaa garanaya oo qof walba caqligiisaa garanaya sida loo kala maaraynayo xisbiyadii ummadda u taalla xukuumaddana uma taalla kulmiyana uma taalla xisbiyadii ummadda u taalla laakiin cid walba ha ku qanacdo inaan November iyo December oo labada bilood isku xiga 2022 laba doorasho dalka ka dhici karaynin cid walba ha ku qanacdo taa marka waxaan leedahay doorashadii madaxtooyadii tan ururada ma wada dhici karto labada bilood isku xiga oo labada biloodna ay tahay labada bilood ay ku beegantay sharciga ah labaduba ka dhacaya demaysa saarnaa sidii kuwan misukan fuulayaan isa saarnay si kale ma dhici karaan dee way marka idinku xeerka la abaabulayay iyo marka hadda ii kaadi haye doorashada madaxtooyadu wayna November dhacdaa November 16 wayna dhacdaa way December madaxweynaha kale la wareega haye caqli baa la doonaya وين ديسمبر مدحوينه كلا لوريغا 12 كيدا سوماها دورشده deegaan kuna wayna dhacdaa 22ka 22ka ديسمبر wayna dhacdaa qorad waxaan leeyahay ururada siyaasi wayna 22 ka dhacdaa waa 10 casho suuragal ma tin doorasho ku dhacdo laba doorasho ku dhacaan de suuragal ma tahay sida loo kala maareynaya qarankay u taala way qaranka u taalo idinku midaan mas'uul ka ahayn qaranka oo xisbigii dawliga meedaan haynoon madaxweynihii xukuumadii meedaan hayn oo inaad maareysaan mas'uuliyadeedii iyo dhaqaalaheedii systemkeedii kala idinka doonay maareynteedu waa qaranka la isugu yeedhay loo soo maareynaa arinta kale meesha taalo waxa weeyaan imika sababta ururada loo furaya miyaanay hayn ururadan xisbiyadan mucaaradka ee isku biiray iyo awoodan ay saareen iyo culeyskan ay saareen iyo midowgoodaasi miyaanay hayn inaad ku kala furfutaan sababta dabada uga sii riixaysaan aad fursad u raadinaysaan deeniyo horta xogaalnimada la'aantu waa mushkilad weyn qolihii hore wakiiladu xeerkan markuu bedelay wax ka bedel ku sameeyay xeerkii hore horta xukuumaddu ma ogeyn talana kuma lahayn waliba maanta aan cadeynayaa guurtida markii loo gudbiyay xukuumaddu waxa guurtida fasax galo joojiye baalka fasax gala sababtuna maxay si golaha wakiiladu fasax uu noqdo oo waqtiguna uga dhaco oo dabadeedna aan ugu soo noqon oo dabadeedna xeerku halka ku dhinto ay xukuumaddu doonayso oo aanu rabo la furin waan waxa sidan ugu yaallo imika sidan ugu yaallo de complicated-ka ah ila ururada in la furo waa xeer sharci baa ahayd xeer baa qoraya 10 sano mar baa la furiyay waqtigiisina way taagan tahay sidan loo kala bedelay iyo waxaan la isku beegay in fact xukuumaddu kula may socon imika de goli gurtida waa soo daayay madaxweynuhuna de ikhtiyaar kale ma leh waa inuu saxeexaa farsamada la isweydiiyo la isugu yimaadaa intaas marka xeerka ma lagu sameyn karin isbedel lagu sameyn karin haddii qaranka u taala baa tiri xeerka laftiisu in amad ma lagu sameeyo golayaashii dib loo soo mariyo hadduu madaxweynuhu saxeexo waxaan ku idhi talada qaranka ka mid tahay madaxweynaha laga rabaa inuu ummadda siiyo qaranka isugu yeedho waxaan tale laga gaadho aad ma lagu sameeyo ama mid ha la laalo ama xeerka dib ha loo laalo ama si kale ha la yidhaahdo ama de meel kale ha lagu soo jebiyo si uun bad xal baa loo baahan yahay cabdikariin axmed maxamed adigoo mahadsan arrinta la xidhiidha gobolka Maroodi Jeex marka laga hadlo golaha deegaanka 830 kun cod baa helay 70 kun kulmiya helay 79 kun helay xisbiga wadani in magaalada Hargeysa golaha deegaanka oo meeriya adigu awoodda badnayn kama helay idinka guuleystaa maxay idinka dhigantay xisbiga allaale wax nooga dhiganta reer Hargeysa qofkii dadkii doonayay inuu codeeyay un mooyaane waxa allaale wax kale nooga dhigan tahay waxa loo codeeyay xisbiga maaha waa shakhsi ashkhas baa loo codeeyay xisbiyaduna weelkii bay ahaayeen hadduu qofku iikad hadduu xisbi kale iska sharaxana saas baa loogu codan la qofku ashkhasti baa lagu kala badiyay baad leedahay marka ashkhasti ma leedahay ashkhas wanaagsaneyn hadda leedahay ba ashkhasta dhinaca ka qaado xisbiga xukuumiga ama laga ashkhas wanaagsanaaday ka dhiganta waxa doonaysan inuu ashkhas ku xubaan u qaadana sasa doonaysan ma admirka ashkhas dadii xataa loo kala codeeyay walidinka ashkhas wanaagsanaaday ka dhiganta maya waxaad adna qirtay adna aan qirayaa in
isbeddel kale oo aynaan hore u dareensanayn oo dhalinyarada xaggeeda oo social media u jiro ya berri ka maalina waxaa dhici kartaa in iyadoo dadku haddana sida kale u hadlayo ayaynu arki karnaa wax suuragala siciid cilmi rooblo oo hadlay oo xildhibaan hore aha wuxuu sheegay in xisbiga kulmiye madaxweyne siilaayo raacay guuldaradan iyo waxaan lagu soo celcelinayaana ay qayb ka tahay dareemadaasi marka ma qabtaa inuu xisbiga kulmiye siilaayo raacay maxaad ka qabtaa fikirkiisa ma qabo waxaanan u qabin xisbiga kulmiyadda waa kan tartamay waa kan jira siilaayo waa oday ummadeed oday karaamaysan u ducaynaynaa waa sharfan yahay horta in dee siilaayo meelaha la warwareejiyo anu maba jecla runtaa wanaagsani karaamo iyo ixtiraam wiina wada cid kasta waan maqlayay dee guddoomiyaal xisbi oo kilibadu meel walba ku jiraan le khiyaamo qaran buu sameeyey maxkamadda la taago hadda isagan madaxweyne ba ahayn maxkamadda la soo taagana waan maqlayay marka siilaayo waxa imika ishii ka dhigayo inuu khalad baan u arkaya halkiisuu ku karaameysay halkiisa loo karaameeyo ama xisbigii kulmiya wuu guuldaraystay aanin waan ka hadlayay guuldarrada aan isla qirno horta guul iyo guuldarro ku joogo imika waxaad leedihin guuldaradii ma aqbalsanin baad leedihin ba idinku ma aqbalsanin maaha guuldarro ma jirto xisbigiinu afhayeen hore oo ka mid ah xisbiga kulmiye oo afhayeenkii hore madaxweynahana wasiirkii ganacsigana soo noqday xuseen deyr oo kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dib loogu noqdo xisbiga sababta keentay dhaliilaha bulshadu aanay ugu wada qancin sidii hore loo baahna maxaa taa kaga jawaabaysaa miyaan ahayna dib iskugu noqotaan idinku waa xubin xisbi waa soo jeedin buu leeyahay xaq buu leeyahay cid walba oo odhan kartaa dee xisbiga kulmiya dib haysu xisaabiyo in wax ka khaldan kala haysa saxo dee nin walba uu qabaa cid walba qabtaa taa dee taasi maanay noqonaynin halka aad taagnaydin baad hoos uga jirtaan maaha macallin ninkoo guulaystaad xisaabin kartaan baad leedahay xisbigu mar kastoo doorasho dhacdo xisbi waliba mar kastoo doorasho dhacdo wani dib isu xisaabiya maxaa inaga khaldanaa maxaa inoo sax horumar halkaa hore uga soconnaa maxaynu halkaa ka bedelaa xisbigu isaga shaqadiisa taa cabdikariinow markaan kusoo noqono qodobka ah adiga degmo doorashadaada sida guudba way gobolkaa doontaba gee 3 gobol iyo 4 gobolkaa doonta gee nuxurka ugu weyn waxa weeyaan dadka deegaankaagu xisbigii kulmiye sidii hore inaanay ugu wada qanacsaneyn dadka ugu badan dhaliilaha u soo jeediya yihiin oo wax ka tirsanayaan xisbiga kulmiye taasi darteedna aanay sidii loo baahnaa cod u wada siin doorasho kale oo timaado miyaanay khatar idinku hayn iyadoo sidaa cabasho iyo tabasho u jirto inaad mar labaad doorasho gashaan horta waxaa sheegayso dee cabashadu waa jirtaa tabashaduna way jirtaa laakiin wax isweydiin leh oo in laga wada hadlo u baahan ma sidan loo sheegayaa mise sidan ma aha ka wada hadal bay u baahantay ka wada hadal bay da u baahantay iyay uga baahantay meed adigu siyaasi u ahayn waan ku soo wadaa waxay u baahan tahay tabashadan iyo cabashadani sidan ma u jirtaa mise uma jirto in laga wada hadlo oo siyaasiyiin baa reerka siyaasadda ku bedesha dhaqankana madax dhaqameed baa ku metela inay iyagu wada hadlaan marka hore iyagu inay wada hadlaan siyaasiyiintu xisbiga doonaya ha noqdaan in la wada hadlo laysdhegeysto laysqanciyo wixii loo arko waxaas inaanay gar inagu ahayn dee laga yimaado wixii laysla qaatay inay gar tahayna dee loola yimaado madaxweyne olada waxaanu tirsanayna madaxweyne maan waxaa qulahayn dadkii doortay weeyaan deegaankaaga inuu dadkii soo dhaweeye la hadlo oo dadkii uu isagu u yeedho miyaan isaga waajibkiisa ahayn dee niyo halkan ma doonayo de sidaad u weydiinayso wax walba inaan idhaahdaa doonaysaa wax badanoo de aan xoogaan ohayna waa jiraayo aanad hadda aan jeclayn de halkan inay ii maraan madaxweynaha iyo dee deegaanku waa ballansan yihin intaas makugu filaata maxay ku ballansan yihin su-aashu waa taa weya dee inay isu yimaadaan wixii tabashaa kala dhegeystaan daawadayaal weliba halkaad nagala socotaan waa telefishinka caalamiga ee mm t v iyo waraysiga aanu la yeelanayno cabdikariin axmed maxamed oo ah guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga ee xukuumadda somalilan sidoo kalena ah xubin golaha dhexe ee xisbiga kulmiye iyo guddida fulintaba ka mid ah waraysiga gabagabadii ayaynu ku dhownahay bal cabdikariin ugu dambeyntii waxaan weydiinayaa rajada uu ka qabo in ay la helaan shirguddoonka golaha wakiilada de haddaanan rajo ka qabin maanan dooneyn xamadow haddaanan rajo ka qabin maanan dooneyn insha allah waanu ku guuleysan doonaa
ka xisbi ahaan way xildhibaanada soo baxay qaar ka mid a ayaa waxay idinku eedeynayaan inaad lacag bixinaysaan oo lacag lagu baayacayo wasiiradii u tegayaan oo mudanayaashii u tegayaan oo miidiyahaba ka sheego toos u sheego warbaahinta la hadlo weliba fara badan mii jirtaa lacagta aad bixinaysaan eed xildhibaanada ugu baaqaysaan ee aad doonaysaan aad ku kasbataan maadaama idin aqlabiyadaan idin haysan deni anana warkaanu haynaa waa xagga kale in lacag badan bixinayso oo meelo badan weliba ka imanaysaa somaliland ba ka baxsanay meelo badan ka imanaysaa inay jirto baanu anana maqlaynaa xagga kale lacagta bixinaysa waa xisbiyada kale ujeeda xisbiyada kale aqlabiyad bay haystaan maxay uga baahan yihiin lacag bixiyaan oo kuyna u yeedhaan iyagaaba isku filan tee labada xisbiya isku tegay kan la isku akhriyay idina aqlabiyad ma haysatee hudheelka 3 bay ku jiro 27 bay ahaay dhaafi waay 27 bay dhaafi waay maxaad ku cadeynaysaa 27 ahaayeen sokor labiyo konton mudane haystaan oo iyo xisbiyada mudane way u soo baxeen laakiin ma haystaan annana kule ma haystaan marka ma idinkaa ka qaatay oo eedana inaad lacag bixinaysaan baa qayb ka maya hore waxaan kugu sheegay dad badan siyaasad xumada iyaga laftooda qayb ka ah waxa lagaga tegayo iyagoo aan la tashan musharaxiintoodii iyagoo musharaxiintoodii isku deegaanka ah oo soo heshiiya bay iska qaateen musharaxiin iska qaateen kuwii kale waa kaga cadhoodeen way kaga tageen marka idinkii yimaadeen dabcan dee wada hadal baa noo socdaa waxba naga dhexeeya hadda maynu sii daynayna waa Chinese baa la sii daaya way marka ma leedahay cabdikariim xildhibaan ku-xigeenkii ka soo baxo ama kulmiyaha ka soo baxo ama wadanaha ka soo baxo wax la waxaan helo waa ka xaysanayna simple hada ka sheekeynaysaa marka sideed u helaysaan qaabkeysha dee qaabkaan u helina waa qaab alaale qaabkaan u helina waxa weeyaan waxaa soo cadho raggaa soo cadhooda midhan baan u helayna ee la xumeeyey ee ikhtiyaarkii laga qaaday ee loo magacaabay cid iyo aan la odhan waryaadhan aniga deegaankayga kore ka soo qaatay faysal buu magacaabay dee waxaad inta xisbigiisa ka soo baxday deegaankayga inuu isu duro yidhaahdo ordoo idinkuna iska soo saara cumar jaamac faarax buu magacaabay deegaankan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha waxay ahayd inuu rag u diro yidhaaho waar ordoo nin iska soo magacaabo ama cumar ha soo magacaabaan ama dee cid kale ha soo magacaabaan laakiin dee rag kaloo damac lahaa oo han lahaa ila xaq bay u leeyihiin ayaa dee kaga cadhooday way marka kuwaasaad urursanaysaan idinku hadda miyanu ka tegayna waxaanu helno way taasi haddii aad ku guulaysan weydaan maayaradiina idinkaga guulaystay way haddii aad ku guulaysan weydaan anu su-aalahaygu maan ku weydiinaya allaala wax ka baxsan su-aalahayga ma hayo su-aalaha bulshada iyo waad ugu xusuusanaysaa wado taasan ka shaqaynaya su-aalaha haddii 5 maayar la idinkaga guulaystay 7 degmo eeya golihii wakiiladana la idinkaga guulaysto maxaad yeelaysaa warda 7 degmo eeyana lagama guulaysan 7 degmo eeya 5 maayar baa idinkaga 5 maayar baan lagaga guulaystay 5 maayar baa idinkaga shantana xisbi nagama guulaysan labada xisbi isu tagay muhiimadu waa maayarku baa loo cararayay mar walba labada xisbi isu tagay waa guulaysan mucaarad baa haysta laakiin kada 5 degmo mucaarad baa cidina ma filaynin xisbi inuu laba xisbi ka badan karo waxa leedahay inuu dhacayna ma filaynin inaan waayno maya xisbi marnaba adana kuma fikirin wali kalena kuma fikirin laba xisbi hal xisbi inuu ka badanayo cid ku fikirtay ma jirto ma bay ahayn ba sida saddex xisbi sameeyeen baa inaanu awoodda inta la kala laba xisbi markay israacana daway ka bataan xisbigii kale marka dee xaq bay u leeyihiin wax doortaan iyagu is doortaan wax siyaasad xaq bay u leeyihiin way dalacayn iyo noqomaha nuqsan iyo inaan awood weyn noqoma ahad way haddii shan maayar oo labada xisbiye mucaaridka ay jiraan maanta idinkuna 2 maayar aad haysataan 7 degmo eeya golihii wakiilada haddii la idinkaga guulaysto maxaad yeelaysaan xisbi ahaan ila xisbi awood badan xukuumiya khibrad leh waa idinka ku faanaya khibradda ee waan khibraddeedanu ku helaynaa awoodaha badan ku faanaya haddii ay labadaas idinku wada dhacaan maxaa idin qorsho ah dee horta inay nagu dhacayaan anu ma filayno dee miidaan filayn marka horeba inay israacayaan war waan filayni waxaanu fili weyn waan filayni israaciyan laba xisbi mucaarad mar walba israacid walba filaysi annaga aan midnaan raacaynin mar walba filayni laakiin dadna tan ma filayno waanaanu dee qorsheedii hawshadana waanu leenahay haddii se dee labada xisbi ay naga guulaystaan oo ku guulaystaan dee waa wada shaqeynna waa hambalyo taasi mushkilad ma laha laakiin dee waana waxa doonaysan la shaqeyn mayno haddii la kala adkaado waa la wada shaqeynaya shaqeynaynaa haddaanu ka adkaanana waa nala shaqeynaya hadday nagaga adkaadaanna waa la shaqeynaynaa waxaanu se filaynaa anagu inaanu tan ku adkaan doono insha allah qodobkayga ugu dambeeya cabdikariino ma is leedahay waxyaabahan keenaya
imika culayska ee xisbiga kulmiya uu ugu jiro halganka aynu gudoonkii helo maayaradii tartankeedii doorashadii deegaan doorasho waxba ka waayay meelaha qaar dadkii culayskaasoo dhan inay tahay tabasho xukuumadda oo jirto oo bulshada somaliland ay qabto marka la isku geeyo deegaamada si guud iyo si gaar ahaan warheedhe maxamed hore waxaan ku yidhi labadii doorasho hore malaa caruur baad ahayd sidanun bay ahayd tabtanun bay ololahay kambe kale isugu jirta 330 mudane ayuu helay xisbigii xukuumadda ahaa waqtigaas idinkoo xisbiga mucaaridkii ugu awoodda badan 28 mudanaad hesheen 5 mudane idin dhexeeyey halkaad adigoo xisbiga xukuumiga maanta aad heshay 30 mudane xisbigii mucaaridka ayaa halkaagu kale ku jiray inuu helay 30 mudane sidee u noqonaysaa anigu xisbigoodu wuxuu sameynayey maan samayn doorashada intii dacwada ka taali wada weyd xisbiga dacwoonayeen iminka ashkhaas baa waxyeelo tabanayoo leh totalka dibhana loogu celiyo waa ashkhaas xisbiya ma aha ee wax tabanaya laakiin taa xisbiya tabanayay awoodda dowladda la isticmaalay baawarka dowladda la isticmaalayay dowladdo dhan baa shaqaynaysay wasiirada shaqaynayay hantida dowladda lagu shaqaynayay taa waad ogeyd tan annaga xaaraan bay naga dasugaadi deegaanka ka soo shaqaynayeen wasiiradu ka shaqaynayeen cid walbaaba ka shaqaynaysa wasiiradu deegaankii maayarada xataa ay suurtaageen inay isdoortaan markii mucaaridka ayeen ay gobol walba ka dhacaysay boorima ka dhacaysay ilaa laascaanood intaasoo dhan ay culaysku ka jiray adoo shakhsiya xukuumaddiina ka tirsan maan shaqaynay anu xukuumadda maan shaqaynay madaxweyne anaga xukuumad ahaan xukuumaddiina annaga ashkhaasaan dad tagnay deegaamadayadii ma waxaad aragtay waad garanaysaa doorashadii hore wakiiladii hore waad garanaysaa ku odhan carruur baad ayaan ku sheegay ilaa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenka gobolada wadanka oo dhan maray ololaha u maray tan ma madaxweyne maryaad aragtay madaxweyne ku-xigeen maryaad aragtay adeekadi gobolada wadanka maryaad aragtay ma wasiiro deegaankooda deegaan ahayn tegayaad aragtay ma xubno dowladood deegaankooda deegaan ahayn ka ololinayaad aragtay dee waajibkiin maanu intahayn madaxweynuhu miyaanu marin gabiley oo hargeysa marin oonu berbere marin oonu burco marin intii uu ka filayay codka xisbigiisa kulmiyuu ka awoodi badnaa ayuu maray intii kalena saraakiishiisii dowladdu u diray xisbiyaduna saas lamidun bay sameeyeen inta badan oo waxay wada mareen deegaamada hadda ay madaxweynaha kula tartamaya marka ku kale laga imaado marka madaxweynihina wuu baxay wuuna ololeeyey xildhibaanaydina u codeeyey yidhi iina doortu yidhi laakiin dee dadkii fursaddii ay bixiyeen ayaa kala duwanaatay waa kuwa cid kaleba ay kusoo baxday marka waxaan leeyahay cabdikariin tabashana nagama qabo xukuumad ahaan oo bulshadii somaliland xisbigii kulmiye kama qabto 20 sano jiray wariyow taada horta odhan maayo oo xukuumad kasta oo somaliland soo martay tabasho waa jirtay tabashadu ama gar ha ahaato ama gar ha ahaato wax garana waa laga helayaa waxaan gar ahayna waa laga helaya dadku waxbay soo geysanayaan waxba jirayaan tabasho kulliba dee way jiraysaa oo la odhan maayo dadku 100% ma waalidii 100% dadku dowladda waxba ka taban maayo xukuumadda gariga gardarka dowladda ha ahaatee ka taban maayo dee taa ma odhanayo waxaase dhinac yaallaa dad badan oon xukuumadda waxba ka tabananin oo taageerayaal ah oo doorashada madaxtooyada codka siiya oo imkana siinaya baa musharaxooda xisbi kale kala soo baxayay daawadayaalkaas wuxuu ahaa cabdikariin axmed maxamed gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga somaliland isla markaasina ah xubin golaha dhexe iyo guddida fulinta ee xisbiga kulmiye waraysigaasina waxaad kala socoteen MMTV cabdikariin aad iyo aad buu mahadsan yahay waraysi qurux badan oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka somaliland ayuu ahaa aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdikariin aad baan kugu mahadnaqay cabdikariin aad baan kugu mahadnaqay